السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. xanuunka macaanka ama sonkorowga oo sanadihii ugu dambeeyay si aad u faafay isla markaana la sheegay dadka waqti xaadirkan ku nool adduunka korkiisa boqolkiiba 35 kamidi inay la nool yihiin xanuunkaas inkastoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala cudurka iyo caafimaadkaba isagu hayo haddana waxa jira waxyaabo sababi kara in xanuunkaasi uu haleelo bini'aadamka sidoo kale waxa jira waxyaabo lagula tacaali karo ka hortagista xanuunkaas haddaba cuntooyinka ay khubarada caafimaadku sheegeen inay jirka ka caawiyaan inuu iska difaaco xanuunkaas waxa kamid ah isticmaalka saliid saytuunta oo ay ka buuxaan maadooyin hoos u dhiga khatarta cudurka sonkorowga waxa kale oo kamid ah khudaarta cagaaran waxa isaguna kamid ah cunitaanka boorashka oo la sheegay boqolkiiba 10 inuu ka hortago khatarta cudurkaas waxa kale oo iyaguna kamid ah cuntooyinka baalka leh sida faasuuliyaha fuulka iyo kuwa la midka waxa kale oo kamid ah cuntooyinka badda laga soo saaro sida kalluunka waxa isaguna kamid ah tufaaxa sidoo kale waxa kamid ah geedka qarfaha oo lagu darsado cuntooyinka iyo cabitaanada shaaha uu kamid yahay waxa sidoo kale iyaduna muhiim ah in jirkaagu uu helo jimicsi joogto ah waxa kale oo khubaradu dadka ay kula taliyaan in qofku intii karaankiisa uu yaraysto cuntooyinka ay ku badan yihiin sonkorta iyo subaga gaar ahaan xilliyada habeenkii ee qofku uu seexanayo iyadoo marba marka ka dambaysa ay soo badanayaan digniinaha laga bixinayo isticmaalka badan ee sonkorta isla markaana xeeldheerayaasha caafimaadku ay sheegayaan in isticmaalka badan ee sonkortu ay khatar ku tahay caafimaadka qofka bini'aadanka ayaa haddana waxa adkaatay in qaabka ay dhaqaatiirtu ku talinayaan la isaga ilaaliyo sonkorta maadaama sonkortu ay ku jirto inta badan cunitaanada iyo cabitaanada aynu sida joogtada u isticmaalo haddaba daraasado dhinaca caafimaadka oo dhawaan la sameeyay waxay sheegeen in muddo bil ah oo qofku gabi ahaanba iska daaya sonkorta isla markaana faraha ka qaado dhammaan cabitaanada iyo cunitaanada sonkortu ay ku jirto in qofku muddada bisha ah ee sonkortu ay jirkiisa ka maqan tahay uu ka helayo 7 arrimood oo u fiican caafimaadka jirkiisa kuwaas oo kala ah miisaanka saayidka ah ee jirka oo xaddi badan hoos u dhaca muddada bisha ah ee sonkortu ay ka maqan tahay jirka qofka iyo arrinta labaad oo ah in muddada bisha ah ee sonkortu ay ka maqan tahay qofka jirkiisa in gabi ahaanba jirka noocyadiisa kala duwan ay si habsami u shaqeeyaan isla markaana jirku uu jaanis u helayo inuu gubo oo burburiyo sonkortii hore ee ku jirtay jirka ee jirku aanu u baahnayn waxa kale oo arrinta saddexaad oo khabarada caafimaadku ay sheegeen in muddada bisha ah ee sonkortu ay ka maqan tahay jirka qofka uu qofku helayo hurdo raaxo leh waxa iyana arrinta afraad ah in muddada bisha ah ee sonkortu ay ka maqan tahay jirka qofka uu wanaagsanaanayo diirka sare ama maqaarka sare ee jirka isla markaana uu soo baxayo quruxda iyo dhalaalka diirka sare ee qofku iyo arrinta shanaad oo ah in muddada bisha ah ee gabi ahaanba sonkortu ay ka maqan tahay jirka qofka uu jirku helayo difaac uu iskaga difaaco xanuunka macaanka ama sonkorowga gaar ahaan nooca labaad waxa kale oo iyana arrinta lixaad ah in muddada bisha ah ee sonkortu ay ka maqan tahay jirka qofka boqolkiiba 35 qofku uu ka badbaadayo xanuunada ku dhaca wadnaha iyo arrinta toddobaad oo ah inuu yaraanayo ama ilaa xad hoos u dhacayo suuska gala ilkaha iyadoo hay'adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyay WHO ay dhawaan sheegtay in isticmaalka badan ee sonkortu uu waxyeello weyn u geystay ilkaha